يا إلهي وردك وعنك يا فريا اللهم ألف بين قلوبهم كما ألفت بين أصحاب اللهم ألف بين قلوبهم اللهم ألف بين قلوبهم وأيدهم بروح وأيدهم بروح عندك وارزقهم من لدنك رحمة ورضوانا رحمة ورضوانا رحمة ورضوانا آمين. waxaanu kugu wareejinaynaa oo nabadgelyadii waddanka ay waajib ku ahayd qolkii afraad haysatay iyo inamadiiba wareejin maaha waa dawladayn madaxweyne annagu beriita haddii alla yidhaahdo waxaan marayn garoonku inaanu qaadayn waxaan keeni wareejin baynahum qulan madaarkana waa idin raacinayna waxaan idinku baaqayaa wax kale maaha xilkii ay saarteen calankaa horteyna yaalla calankaa ila taagaan leeyahay raganimadeennii iyo barwaaqadeennii iyo balaanaheennii halkaasuu ku jiraaye calankaa ila taagaan leeyahay wax kaloon idiin wadaa ma jiro sharaf weyn waxaya maanta inuu axmed maxamuud siiraahi barbardhigo axmed hadduu maanta barbardhigo isagaa iga mudan isagaa xornimihii ku yaalay isagaa dalalkan u soo dhigtay waxa uu igu sheekeeyey mar aanu sheekaysanayay igama maqan suuradii raggii aan u diray jahaadka ee aan ka soo noqonin war waanan midna meeshuu ku aasan yahay aanan usoo badan ogeyn wejigoodii qalbigaygu ku daabayo habeenkii baan ku riyoodaan ragga aan diray wareejin baynahum qulan madaarkana waa idin raacinayna marka halkanka ayuu maanta ku jira ninkii xorayntuu ahaa kana waa kii dawlad dhiska la dhisayo dawlad keelimaha laygu taagayaa aan ogaano kii hore way ka qalaan tahay way ka adag tahay way ka dhibaato badan tahay way ka mas-uuliyad badan tahay midkoodaba ka fudud ma aha waxaa ilaahay ka baryayaa in mujaahidiintaasi ay ogaato in intii badnay ee maanta naga hoosaysa ee halgankaa nafteeda iyo nolosheeda u bixisay inay waxay ku bixinayeen inay khasaaro noqon waxaan kuna ee ay faydo ku noqon kartaa waxtarna ku noqon kartaa waa marka dalka iyo dadku dhismo dalka iyo dadku markuu dhismona waa marka xukuumadi dhisato xukuumadina ma taagnaan karto haddii dhulka gacanta ku hayn oo nabadgelyada gacanta ku hayn oo looga daqayn oo loo wada jirin halgankaana waxaan soo jeedinayaa xubnihii asanamo waxay niin joogaa aynu halka ugu horaysa ka galno kuwa halka ugu horaysa ka galaan noqonnaan ahaano somalilan oo xor ah oo somalilan gudaheeda looga taliyo allah u naxariistay arrintaas oo hormood ka ahaa madaxweynihii hore somalilan maxamed xaaji ibraahim cigaal waxa uu ahaa wakhti adag oo waayihiisa lahaa oo loo babac dhigay in dhallinyaradii iyo mujaahidiintii u soo halgamay waddanku ay hubka xereeyaan oo ay ka qayb qaataan dhismaha dawladnimo dhammaystiran.